iyada oo laga jawaabayo cabasho ka timid maama Amran Maxamed Cusmaan oo isku sheegtay Amran Xalane waxaa dhinac fadhiyo maamada ayada Amaal Nuur Cusmaan oo maqana ah. Amran Maxamed Cusmaan waa hooyada Amaal Nuur Cusmaan waa gabadha maqan ee sida hordhac ah loogu magac qabsaday inay ku lug leeyihiin ilaalada madaxtooyada qaranka balse aan dib idin kugu celiya halkay ka soo unkantay sheekadan. waxaa jirta xarun Daarusunna la yiraahdo oo ku taala degmada Hodan waxaa lagu dhaqan celiyaa dumarka ay u maara waayeen waalidiintooda. Maymuun Cabdiraxmaan waa hooyada laba gabdhood oo ay Amal ka soo wada baxsadeen xaruntaasi waxaase ku wareejiyay gabdhaheeda hay'adaha amniga sida booliiska. laakiin waxay wax laga xumaado ku tilmaamtay sida ay u wajahday maama Amran Xalane qadiyadan. muxuu ahaa maamada ka maqan gabadha kale anagoo dhan hooyaanahay hooyana waa dareemaysaa gabar marka ay ka maqantaa xanuunka ay leedahay amba waa dareemaya intaas ilaaha baryaayay horta ilaahay subxaana wa tacaala amaal allah u soo celiyo allah u keeno inkastoo aan ka xumahay muxuu ahaa jidka ay martay iyo muxuu ahaa waxa ay samaysay iyo hadallada ay ku hadashay kolley wax ila fiican oo sax ma aha. gabdhahan anaga meesha geysanay qofna noo geeyay ma jirto anaga meesha ku xareysanay iyaga meesha ka soo fakadeen kulligood iyaga 7 qof 6 qof ah iyaga meesha ka soo fakado ka soo cararay anagana wanaagaan la doonayna gabdhahan gabdha soo saar amaalna qof muxuu ah meesha ka soo saar ma jirin gabdhahan way soo wada fakadeen haddana waxaan u wada raadinaynaa inaan hooyo kasta ay gabadheeda hesho ayaan muxuu ahaa ishag alxamdulillah waa la helay way imaaday sidoo kale iimaan sidoo kale idan ilaahay waxaan ugu rajeynayaa gabadheedana inuu si nabad ilaahay ugu keeno. Ayaan waa gabadhii ugu dambeysay ee maqanad Amaal wada xiriiraan laakiin kuma aysan heshiinin talada Amaal ee ahayd in waalidkood ay ku wada dacwooyaan safaaradaha wadamada ay ka kala yimaadeen. da ahaan gabadha maqan iyo Ayaan waa ay isjiraan. maqanad Amaal waa maskaxda naqshadeysay sidii looga baxsan lahaa xarunta lagu tarbiyeenayay ku dhawaad sanad. Ayaan bal ha inoo sharaxdo sida ay wax u dhaceen. laba Amaal hadaa dhahdii qofkii ku xanaaqaysan aday ku xanaaqay dadka dhaani qaribe wax ay cafinaysa male qof xanaaq badan ahayd waxaanay tiri Amaal inay noqoto way rabtay oo dibadda wadankeeda ay ku noqoto oo hooyadeeda dacweyso waxayna rabtay maxal in hooyadeeda dacweyso wayna ku faraxsaneed ayada raali ka ahayd Amaal ani hadda qof ma dhahay waa ka aqli badan hay aniga raali kama yihiin waaridkayga dacweeyo ama hooyadii aan dhibaato wax faa'iido hadda igu jiro waa dacweey dibadaan tagay hay kadib maxay igu dhacay maxay dambeeyo xanuun masiibo cuquba ay dambeeyso maxaa faa'iido igu jirta Amaal kama aqoon marka anaga dooranayna waaridkan u soo noqono ayadan ay dooratay inay baxdo anaga wax qalad kuma lihin. Cabdinaasir oo kamid ah saraakiisha dawladda ahna abtiga maqanad Amaal waxa uu dadaal ku bixiyay sida gabadhooda ay u heli lahaayeen. nasiib xumo walaashiis ayaa dhinac martay oo eeda dusha ka saartay ilaala ka tirsan madaxtooyada qaranka. ilaalintu iyo maxkamaddu waxay nagu xirtay in cadeyn la hor keeno wixii marka cadeyn marka aan weynay markii waxa la anigana shaqadeedii aan ku noqday oo qaranka ku noqday iyaduna jaamacadii dhiganaysay gabadhuna iyada keentay oo dalka ka keentay inay dhaqan celin u keentay kuleejada marka waa ka xumahay in marka madaxtooyada iyo taliyihii madaxtooyada iyo saraakiisha madaxtooyada oo nala dadaalay oo hawshaan gabdhahan sheeyada ma keenay aniga iyo madaxtooyadan keenno sheeyada u shaqeynay. General Abdullahi Buule Kami xeerlaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa ka warbixiyay heerarka uu soo maray kiiskan isagoo amray hay'adaha amniga in la baadi goobo maqanada. sidoo kale CID-da ayaa la faray inay sii wadaan baarista kiiska la xiriira maqanad Amaal xilli uu galabnimadii maanta warfidiyeenada kula hadlay xarunta CID. arinta iyada markhaatiyaal waxay qabsatay 2 nin oo kale 2 nin baa wax laga qoray oo xafiisku u yeeray iyagina wax cadeyna waa laga waayay haba yaraatee sidaas darteed xafiiska xeerlaalintu wuxuu arintii u xil saaray baaris dheer in la sameeyo CID ay sameeyso maanta sidaad halkan ka arkayseen waxaa shir jaraa'id ku qabtay oo xarunta CID lagu wareysanayaa gabdhihii iyada la socday oo ka sheekeynaya qaabkay uga soo fakadeen xaruntii dhaqan celinta ay ku xareysnaayeen waxay sheegteen inay 7 gabdhood ahaayeen 4 inay ahaayeen diaspora Soomaha 4 kamida inay ahaayeen diaspora Amal ay ku jirto iyo 3 gabdhood halkan fadhida 2 gabdhoodna ay local ahaayeen mid waayeel ay ahayd nasiib wanaag
markii ay meesha waxa ay si qaabka waxaad ka arki doontaan videoga qaabka ay u soo baxeen inay xataa ilaaliyihii meesha ay ku dhufteen dhala ay jabiyeen si xooga meesha ay uga soo baxsadeen markay soo baxsadeen qaabkii ay u kala baxeen iyagaa ka sheekaynaya على كل حال gabadhii iyadoo fayow ayay dhowr jeer la soo xirtay iyaan ikhtiyaarkeeda ku baxday waxa cadaatay in baaristii meeshii laga filayay ay jirin gabadhii in la helo waa laga maarmaan oo booliiska taa wadaya baarista CID laakiin kiiskii loo haystay maxkamadda ciidamada waxay dacwooyinkooda qaadaa xubnaha ciidamada qalabka sida iyo xubnaha kale sida ciidanka u diyaarsanay argagixisada xubnihii ciidamada inaysan shaqo ku lahayn ayaa cadaatay kiiskii baaristii CID baa sii wadaysa waxaan la horgeynay xafiiska xeeraliyaha guud ee qaranka iyo maxkamadaha caadiga awood u leh cabduqaadir ciise warbaahinta qaranka magaalada muqdisho